taliyaha booliiska iyo ku-xigeenadiisa iyo mas'uuliyiinta kale halkan joogto iyo ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir waxaan maanta halkan isugu nimid oo shirkan jaraa'id aan u qabanaynaa inaan ka tacsiyeyno kana hadalno dhacdadii xanuunka badneed ee 26 bishii labaad oo ku beegneeday Isniin ka dhacday isgoyska Siinaay ee taabatay shacabka Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan dadweynaha degan magaalada Muqdisho runtii waxay ahayd arrin xanuun badan oo taabatay mas'uul iyo mid mas'uul laga yahay intaba madaxweynihii Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaarihii mas'uuliyiintii kale annaga kulligeen ba waxay noqotay arrin taabatay naga fajacisay dhacdada iidaada xanuunka badneed sida uu ka dhawaajiyay taliyaha booliiska dhacdada maalintii ay dhacday goortii ay dhacday isla saacadii baa annaga goobtaan tagnay annaga iyo hay'adaha amniga goobtii aan tagnay waxaan aragnay sida ay wax u dhaceen kadibna shalayo idil ilaa xalay waxaan ka shaqaynaynay oo u taagnaynay fal dambiyeedkaas dadkii geystay inaan aragno xabsiyadana ku hubsanno itus oo itaabsi wax la yiraahdaan anagu naqaanaa waxaan dhahnay amni marka la yiraahdo waa nabadgelyo marka qofka hay'adda amniga ninka ku magacawnaa waxay la mid noqotay wixii cir laga filayo ceeryaama ka timid oo kale maxaa yeelay asaa waxaa laga sugaayay inuu sugo dadka masaakiinta ee shacabka ah oo ku dhex nool yahay amnigooda inuu sugaa laga rabay ayagiiyo dilay ayagiiyo dhaawacay arrin laga filayo ma ahayn taas ayaa waxay keentay ilaa ay habeen hore ilaa ay shalay ilaa saacan inaan daba taaganna nasiib wanaag dadkii dambigaas geystay oo falkaas geystay booliis iyo nabad sugidba way isugu jireen intiba waa la soo qabtay xabsigayna ku jiraan waa xiran yihiin maxkamadda la saari doonana sidaasay kale noqonaysaa shafaafiye noqonaysaa oo meediuna ka qayb galo annagana ka qayb galno si aan u hubinno meeshay xaaladooda ku dambayso waxa waaye waxaan leenahay dilaayow madanqadow damiir laabow aan isdayno haddii aadan damiir lahayn oodan danqanayn oo aad dilay tahay adiguna waa lagu dilayaa maxkamadda ciidamada maalin dhawood waxay fulisay xukun dil ah waxay ku fulisay 2 nin ee si xaq darro ah oo sharci darro ah 2 nin qof oo dilay ninna xamarweyn oo ahay kii lagu dilay midna balcaday ahayd labadaba toogasha lagu xukumay waana lagu fuliyay ilaahay wuxuu leeyahay walakum fil qisaasi hayatun ya ulil albaabi dadka aqliga u saaxiibka ahayow qisaasta waxaan kuugu sugan nolol uu leeyahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala umadaana asaa abuuray maslaxadoodana asaa yaqaano adiga marka haddii shalay mid askari oo adiga kula mid ah inta wax dilay la dilay adigu maanta maxaa ku kalifa inaad wax disho macnaha damiirkaaga maskaxdaada miyaan joogin miyaadan aqli lahayn waana isweydiisaa isla shalay nin oo askari ah ayaa bajaajle wuxuu ku dhiftay xabad zoobe agteeda waan wada joogna taliyaha booliiska isla markii waxaa la wacay cidda uu la shaqaynayay askarigaas isla markii la soo qabtay wasiirkii arrimaha dibadda gacantiisa intuu ku soo qabtay oo xabsiga keenay waxaan maraynaa annaga waa bislaanay biseelkuna wuxuu keenay inaan cid loo jixinjixa aysan jirin waxaan rabaa halkaa inaan uga gudbiyo ciidanka ama militariga ha ahaado ama ha ahaado kuwa booliiska ama kuwa nabad sugidda ha ahaadaane waxaan rabnaa inaan halkaan uga gudbinno war akhiyo saaxiibo waxa dilin xabaddu yaysan ka horeynin xabaddu xal maahan xalka kan ugu dambeeyo waa xal maahan xabaddu sidaa darteeda ha ku degdegin inaad wax disho
madaxweynuhu wuxuu go'aan ku gaaray horena u sheegay ciddii wax dishay in la dilaayo taas ayada ayaana laga dhabaynayaa annagana shacabkan muqdisho mas'uulka ka nahay maalin kasta uma dul qaadan karno inay hoostayna ku raftaan masaakiinta inay hoostayna ku cawdaan oo maalin walba mid la dhaawacay iyo mid la dilay inaan maalin kasta duuna ka tacsiino uma dul qaadan karno sidaa darteed waxaan rajaynaynaa arrintaas ayada ah inaan ka gudubno haddaad damiir laaba dilaaya aad tahay oo doqon aad tahay oo manaxa aad tahay annagaana ku daynayn annagana ku daba taaganna waxaa soo hore kuwa khawaarijta ah khawaarijtu sideedaba shacabkan Soomaaliyeed dagaal kala dhaxeeyay cid ay wax saanfalaan ma jirto ama soo jeed ama sii jeed waa kugu maqan yihiin khawaarijtu iduna waa lagu maqan yahay markii lagu la dagaalamo goboladii ee lagu soo baabi'iyay ayay waxay soo dhex galeen shacabka ay soo dhex galayaan dadweynaha Soomaaliyeed waxaan leenahay garawaay ha qarsanin ee banaanka soo dhig aan wada qabanno hadii Ilaahay yiraahdo taasan sidaas ayaan leenahay waa maasantiin annaga waxaa naga go'an dalkaani inuu horu socdo waxyaabaha kuwa ku ciyaarayana inaan ka hortagno waxaa saddex ah sidoo ka dhawaajiyay taliya kooxdan gaangiska ah oo weerarada la baxay iyo mukhadaraadku qorshaha nooga degsan hadii Ilaahay yiraahdo tilaabaas ayadna waa qaadayna insha Allah qof kasto dan ka raadinaya mukhadaraad iyo balwad iyo darooga naf ka raadinayo shaqo kala abuuro meel kale wax ka raadso kuuna qamayse waa lagu socdaa kuwan intay maaragtay hadda keena dhaqan xumada keena ee dhahayo nin wadaadee masaajid u socdo gabadhan ka zinaysa dhahayo ninka gurigiisa ku soo hoyanayaan ama hooyada gurigiisa ku soo dooyanayaan ma waysan binaadam hayn waxyaabo laga naxaway arrintaas haddaan u dul qaaday iduna haddii loo dul qaato maalinaan la xalli karin iyo waxaan la xalli karin ay gaari doontaa iyadaasna haddii la yiraahdo si wada jir ah ayaan uga wada hortagaynaa waa maasantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu